صباحي بولشوي إنكينا بريء بدا صوماليا اندفاع نو ودنكينا صباحي بولشوي إنكينا بريء بدا صوماليا اندفاع نو ودنكينا نحن صورية مركا إن دولة كينيا أي وضع هذا الهوسا لقى شيء معمولك جبلان واستيد كميدا صوماليا وحنا ستة صوه استجا دولة الفدرال كاي صوماليا يدو لو ضل دبلوماسية سدو دحيسو معهن إن كينيا إلى حاجوتو معمول جولات جارة أما معمول جولات كي درس كلا تاعي نظامهن وحي يكون في عناد إن وحي وده جودة دلكو دولة دولية هاي مدح دولية هاي إلى نوع يستون لبا استيد معهن والله جمهورية وحي حدا اللي يحصلوا بهنانا إن دولة فدرال كهيد لجلها الله أرماس لجلها حجوده إن أنا وهان أنت صنقو قيمين لها ما داموا وحلا قيمين وحلا جها الله يو أي أمد الصومالية دويدل كده حيان وحل قومية جارة يصل لهين أم هل معمول جولات يصل لهين مركا وده هذا القاس وحكوا في عن اللي جلها الله هذه دلالة كان الوقوع قبل لها أما جودها دلالة الوقوع قبل لها وحنا مثل شعبك مدحد الدلك oo xad talada haysta shacabka matala iyaga laga hadli karaa oo wax walba Soomaaliya arimaheedu quseeyo subaxay bulshoy inakeena beriyo bada Soomaaliya andifaacno badaheena Soomaalida Kenya ku nool meelo kala duwan ay ganacsi ku leeyihiin magaalooyinka dalkaas goordhawada waxa maqlaayay in xawaalado halkaas ku yaala la xiray iyo waxsaas maqlaayay laakiin كارين أهان وحكوا في عنتها ويكون ناقصنتها جناحتها ما دام دل كاس يكونوا ين يجي حتى أقبضوا فرق بدن لكل ما يعني ما دام الدل كوديسين جوجل عيد كهذا شيء صلحين شقوين كود حدي معقولة تاو إسكت صوتي كرانو حري كرانو حتى إن دل كود هي مال قشتان ومش مال قليان وحي دل كود بهانا يقصدان ما دام مش دل شيء وها عندنا حيث الدبلوماسية دي جرتو إن أي مشي كسر بحان ودل كودي مال قشتان. كينيا خطة ودل رودرسنا مركز قيميسد أما حالات ربطة أجرتها أجدد وحال سكوه استا بقول كيما بقول حسكله Soomaaliya oo dalalkii caalamka iyo maxkamadii adduunka oo dhan wada aqoonsan in dhulka Soomaaliya leedahay laakiin aan ahaan waxaan miisanahay Kenya ma ahan wax dhibaatada wada ee dalal kale ah arintan shaqo ku leh oo Kenya soo diraya ama Kenya gadaal lagu soo dambanaya in Soomaaliya la doodiyo dhulkeeda lagu doodiyo anigu intaas aan la Kenya jamhuuriyad ahaan waa jamhuuriyad jirta oo geeska Afrika ku yaala anigu waa dal jira 18 gobol jamhuuriyad Soomaaliya oo la yaqaan marka anigu waxaan leeyahay Kenya kama awood anagu nagama awood badna aniga Soomaali ahaan waana ka awood badannahay waana ka taariikh dheernahay Kenya marka dalal kale arintan wadan isleeyahay oo Kenya ku soo gambanayeen Soomaaliya badeeda ay ku doodaysan horta mar baad ay jirto xiisad diblomaasiyadeed oo labada dawladood u dhaxayso waa lama huraan marka in labada dawladood hadii xiisad u dhaxayso in muwaadiniintii iyo qaab kala duwan xitaa marka eegno muwaadiniinta Kenyaanka ee Muqdisho ku nool wax dhibaato loo geysto jirto waxyaabo ay la kulmaan jirto laakiin kuwa oo Soomaalida oo Nairobi ama meelaha kale ee Kenya ku nool dhibaatooyin kala duwan ay la kulmaan marka dhibaatada halkay ka socoto waa xiisada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxayso arintaas in la xaliyo saasay ku dhamaan kartaa